madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aan cusub oo si weyn u bedelaya muuqaalka siyaasadeed iyo midka military ee mandiqada bariga dhexe. Go'aankani waxa uu xudun u yahay soo celinta cunaqabataynta iyo xayiraadii saarneyd dekedaha dalka Iran wuxuuna imaanaya xilli xiisada gobolku ay gaartay markale halkii ugu sareysay. maalmo la filayay in naruuran nabdeed la aado dib u heshiisiintu ay bilaabato gobolkuna uu nabad dib ugu soo laabto. sida ku cad fariimihii ugu dambeeyay Mareykanku ma aha oo kaliya inuu cunaqabatayn dhaqaale soo rogayo balse waxa uu qaaday tallaabo military oo toos ah wuxuuna shacab ka qaaday in gacan ku haynta marinka istaraatiijiga ee Hormuz uu la wareegi doono. Mareykan waa halbowlaha dhaqaalaha adduunka wax badan baynu ka soo sheekeynay waxaana la qorsheynayaa in dhaqaale iyo canshuuro cusub sidoo kale lagu soo rogo maraakiibta halka maraysa si loo maalgeliyo sugidda amniga loogana hortago halista gantaalaha ka imaanaya dhinaca kooxda dalka Iran talada haysa ee ciidanka ilaalada kacaanka. tanina waxay abuuraysaa cabsi weyn oo kale oo ah in dagaalku uu faraha ka baxo. mandiqadu waxay mar kale toos ugu jihaysatay dagaal u eg in loo noqon doono xaaladii lagu jiray bilowgii sanadkan marka oo dagaal dunida oo dhan saameyn ku yeeshay uu gobolka ka dhacayay isla markaana gees uu ku faafay bariga dhexe oo dhan. watan waxaanu falanqayntan aynu ku eegi doonaa shanta qodob ee muhiimka ee salka ku haya isbedelka weyn ee soo ifbaxay iyo waxa kalifay burburka heshiiskii nabadda ee la filayay 60 maalmoodba in gobolka mar kale dagaalka looga saaro. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa ood ku dirtana waa free. hadalka Trump iyo hanjabaadda culus ee ka timid Tehran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maalmihii ugu dambeeyay waxa uu si weyn u bedelayaa qaab hadalkiisa diblomaasiyadeed ee ku wajahan dalka Iran. Trump markii ugu horeysay wuxuu si cad u qeexay in heshiiska u dhexeeya labada dhinac oo gabi ahaan burburay intii Erdogan la joogay. wuxuu meesha ka saaray arag kasta oo la xiriirtay nabadda. hadalladan waxay daba socdeen duqeymo xiriir oo gobolka laga fulinayay habeennimadii la soo dhaafay kuwaas oo u muuqday gogol xaar go'aan dagaal oo mar kale aan ka soo laabasho lahayn. ujeedada Trumpna waa inuu mar kale si toos u beegsado dalka Iran kadib markii uu ka adkaan waayay dagaalkii dhacay bilowgii sanadkii hore oo si waxba ka faa'iidin go'doominta dekedaha. sida laga soo xigtay warbaahinta The New York Times oo xiganaysa saraakiil sare oo ka tirsan taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee Citicomka ciidamada badda Mareykanka waxay bilaabeen in si toos ah go'doomin iyo cunaqabatayn adag ay u saaraan dekedaha muhiimka ee dalka Iran. talaabadu waxay ka dhigan tahay in aan la ogolaan doonin in wax badeecada ay ka baxdo ama gasho dekedaha dalka ilaa inta madaxweyne Trump uu go'aankiisa ka laabanayo. Trump wuxuu dhankiisa ku dooday in Tehran ay jabisay oo ka bixi weyday heshiisyadii la doonayay in la hirgeliyo si xal loogu helo colaadda gobolka. jawaabta Tehran xukuumadda Tehran waxa ay sheegtay inaysan aamusin kaligeed. waxay si adag u sheegtay in talaabada ka timid Trump ay tahay mid aan si nabad loo aqbali karin ay ka dagaalamayso. waxay ku hajabtay in toos ay uga jawaabi doonto isku day kasta oo lagu doonayo in dekedaha dalka loogu soo rogo cunaqabatayn. fariinta Iran uma muuqan oo kaliya inay tahay mid la iska yiri ee waxay u muuqatay inay u diyaarsan yihiin wax kasta oo kaga imaan kara dhinaca Mareykanka gaar ahaan marka laga hadlayo difaaca ka dhanka duulaan toos oo dalka lagu qaado ama dhaqaaq kasta oo lagu xanimayo marinada badda ee dalka Iran. intii uu socday heshiiska xabad joojinta ee maalmaha dhinacyadu dhex maraya Iran waxa ay faa'iiday bilaayin dollar oo lacag oo shidaalkeeda ay si degdeg ah u sii dadejisay in suuqyada caalamka ay ku sii deyso. istaraatiijiyadda marinka Hormuz iyo canshuurta cusub ee 20%. mid ka mid ah qodobada ugu xasaasan ee Trump sida rasmiga hadda ugu dhawaaqay waa qorshaha la yaab kale ee ah in Mareykanku si toos ah ula wareegayo gacan ku haynta marinka Hormuz. aagan waa dhuunta qura ee ay maraan shidaalka iyo tamarta waraabisa warshadaha dunida. waxaana Washington ku tala jirtaa nidaam cusub oo halkan aan laga hirgeliyo canshuur ku soo rogid. Trump waxa uu sheegayaa in la dhisayo nidaam maamul oo lagu soo rogayo canshuur gaaraysa 20% markab kasta oo adeegsanaya markan. taasi waxay ka dhigan tahay in Mareykanku ay sheegeen halkan iyagu inay maamulkeeda la wareegayaan laakiin taas taliska ciidanka ilaalada kacaanka ayaa si weyn u diidan. waxaana sheegeen in iyagu halkan ay maamulayaan waana xudunta dib u soo celisay dagaalka labada dhinac. ujeedooyinka istaraatiijiga Mareykanku waxay talaabadan ku fasireen mid ay uga gol leeyihiin sidii loo ilaalin lahaa badqabka marinka iyo sidii damaanad qaad amni oo buuxa loo siin lahaa dhammaan maraakiibta marinka adeegsanaya sida uu Trump ku doodayo. Mareykanku wuxuu qorsheynayaa in xoog lagu furo marinka muhiimka oo caalamka laga farmoojiyo gacantoodana laga saaro dawladda Iran oo iyadu muddo dheer halkan dhuunta u fadhiday oo ay adeegsanaysay kaar weyn oo ay dunida kula gorgortamayso. bedelidda xeeladaha dagaalka iyo adeegsiga diyaaradaha droonka markii ugu horeysay Mareykanku waxa uu si weyn u bedelayaa qaabkii iyo farsamadii uu la dagaalamayay dawladda Iran kadib 6 bilood oo gobolku ku jiray xaalad dagaal oo cakiran
duqeymihii ugu dambeeyay ee Washington ay ku ekeysay dalka Iran toddobaadkan ayaa banaanka soo dhigay weji cusub oo dhinaca dagaalka adeegsiga diyaaradda leeyahay Kamesa drone sida uu wariyay wargeyska The Jerusalem Post ciidanka taliska dhexe ee Mareykanku waxa uu maalmihii la soo dhaafay duqeymihiisa u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Corsair kuwaas oo ah kuwa loogu talagalay in hal mar isqarxiyaan marka ay bartilmaameedkooda gaaraan oo aan dib dambe looga baahnayn inay u soo laabtaan ka fogaanshaha khasaaraha ciidamada ayaa tan loo arkay adeegsiga teknoolajiyaddan cusub ujeedada ugu ballaaran waa in la geysto khasaare aad u baaxad weyn iyo burbur lixaad leh iyadoo Mareykanku ka fogaaray in dagaalka tooska u geliyo diyaarado dagaal oo duuliye wato kharash balaayiin doolarna uu ku baxayo tan waxay meesha ka saaraysaa in Iran ay soo rido diyaarado dagaal oo kale taasina waxay ka baajinaysaa fadeexadii xoogganeed ee Mareykanku uu qaatay bilowgii sanadkan markii la soo riday diyaaradiisii qaabilsanayd sirdoonka hawada ee dalka Iran isku ridinta awoodda badda dhinaca kale in ka badan 20 markab oo kuwa dagaalka iyo loo markab oo ah nooca diyaaradaha xambaara ayaa haatan ku sugan biyaha khaliijka Carabta sida ay warinaysaa warbaahinta Al Jazeera ciidamadan ayaa hadda u socday in si toos ah ula wareegi lahayn gacanka Hormuz oo muddo dheer ahaa Iran ay ku amar taagleynayso teeda keliyana ay ka shaqeynayso shirkii NATO ee Ankara ka gudbidda caqabadihii hore iyo madaynta xulafada mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee madaxweyne Trump ugu fashilmay isku daygiisii hore ee dagaalka ka dhanka ah Iran waxay ahayd taageero la'aanta isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ururkaasi xubnihiisu waxay si rasmi ah uga gaabiyeen inay ka howlgalaan sidii loo furi lahaa marinka Hormuz oo ay Iran irdaha u laabtay bishii saddexaad ee sanadkan isbeddelka diblomaasiyadeed ee Ankara ka dhacay xogaha xasaasiga ka soo baxay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Ankara waxay sheegayaan in madaxda gaashaanbuurta NATO ay qaateen isbeddel weyn Trump ayaa si toos ah ula garnaqsaday xubnaha madasha joogay gaar ahaan madaxda Faransiiska iyo Ingiriiska oo marar kala duwan ku eedeeyay inay ka shaqeynayaan sidii ugu jabi lahaa dagaalka bariga dhexe midnimo ka dhana Iran arrimaha hadda shidaalka ku shubaya kalsoonida Trump waa inuu taageero iyo damaanad qaad buuxda ka helay xubnihii NATO kuwaas oo uu kula soo heshiiyay inaysan ka hor imaan ama gebi ahaanba diidi karin talaabo kasta oo uu ka qaadaya dhinaca dalka Iran dalalka xulafada la waxa la filayaa inay ku taageeraan isku dagiisa ugu dambeeyo ee uu ku tijaabinayo awoodda Iran isagoo markan ku hanweyn in guul la taaban kara laga keeno duulaanka uu hadda ku howlan yahay inuu ku qaado dalka Iran dalalka Carabta laba daran mid dooro iyo halista dagaalka wadamada Carabta waxay wajahayaan maalmihii ugu adkaa maadaama xaaladda gobolku ay faraha ka baxayso go'aanada Trump ee ku wajahan soo celinta duulaankii bariga dhexe ma aha war fiican dhagaha dalalka hodanka ah ee khaliijka talaabooyinku waxay banaanka u soo saarayaan xaqiiqada in dalalkan ay dhexda u gali doonaan dagaal mar kale mandiqada ka qarxa kaas oo ay ku jiraan xaalad laba daran mid doora halista dhaqaalaha khaliijka ilaa iyo hadda wadamada Carabtu ma taageeri karaan si buuxda in dagaal weyn uu dhaco laguna ekeeyo marinka Hormuz oo lala wareego marinkan waa dhuunta kaliya ee marto tamarta iyo saliidda laga soo saaro dalalkan ee loo iibgeeyo suuqyada caalamka in dagaal ka dhaco aagaas waxay la macno tahay in la xanimeeyo dhoofinta shidaalkooda taas oo burbur dhaqaale ku ah nidaamkooda dawladeed cabsida awoodda Iran dhinaca kale in Iran ka adkaato dalka Mareykanka ama ay fashiliso qorshaha Washington waxayna u tahay dalalka Carabta inay ku keeni doonto culays aad u xooggan haddii ay taasi dhacdo gabi ahaanba waxay luminayaan miisaanka iyo saameyntii ay ku lahaayeen gobolka bariga dhexe iyadoo Iran isku bedeli doonto awood aan cidna babacdi karin oo gobolka ka jirta saameynta khilaafka ee dhinacyo kala duwan ayaa taagan Mareykanku wuxuu u beegsanayaa inuu soo celiyo cunaqabataynta maamula marinka Hormuz adeegsada diyaaradaha drone-ka isagoo taageero ka haysta NATO talaabooyinkan waxay xambaarsan yihiin halisa in dagaalku uu fidayo dhibaato dhaqaale iyo iska cabinta hoose oo Tehran ka imaanaysa Iran waxay u diyaar garoobaysaa dagaal si ay u difaacdo madaxbannaanida dekedaheeda una gacan sareysa cunaqabataynta cusub khatarta weyn ee soo wajahaysana waxay tahay burbur dhaqaale oo lixaad leh iyo duqeymo lala beegsado dhammaan xarumaha kala duwan ee ay ka mid yihiin kuwa nukleerka iyo kaabayaasheeda dhaqaalaha dalalka Carabtu waxay doonayaan in la xakameeyo awoodda fidaysa ee Tehran iyo ka fogaanaya haddana in waxyeello ka soo gaarto kaabayaashooda khatarta ugu weyn waa inuu istaago dhuunta shidaalka haddii marinka Hormuz la xiro ama la duqeeyo xulafada NATO ujeedadooda waa in la mideeyo awoodda reer galbeedka si loo sugo ammaanka tamarta caalamka balse waxay wajahayaan cabsi ku aadan xiisadu ay si toos ah u saameyn doonto suuqyadooda tamarta iyo isbeddelka qiimaha shidaalka adduunka ugu dambeyn gobolka bariga dhexe waxa uu mar kale qarka u saaran yahay burbur kale oo siyaasadeed iyo waliba sidoo kale dagaal military oo aan dhammaad lahayn oo si qoto dheer u bedelaya nidaamka caalamiga go'aanada adag ee uu qaatay madaxweyne Trump sida canshuurta 20% ee qorshaysan isbeddelka xeeladaha dagaalka ee loo weeciyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn adeegsigooda iyo guushii diblomaasiyadeed uu ka soo horiyay shirkii Ankara ee NATO waxay dhammaantood farta ku fiiqayaan xal diblomaasiyadeed oo haatan
aad u fog yahay wadamada carabtu waxay ku dhex jiraan xaalad aan deganayn oo ay ku xisaabtamayaan khatarta tamartooda Iiraanna waxay u muuqataa mid si dhab ah u go'aansatay inaan marnaba u hoggaansamin shuruudaha cusub ee Washington sida xaaladdu ay u socoto filada saxiiga ee ka dhalanaya xiisadan ayaa hubaala inay yeelan doonaan saameyn lixaad leh oo ku ekaan doonin oo kaliya badda khaliijka balse si toos ah u taaban doona dhaqaalaha amniga iyo socodka dunida oo dhan midaan shaki lahayna waxa ay tahay in heshiis kasta oo hore looga shaqeeyay haatan dhalanteed ay u muuqdaan ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh